calankeena midabadayaale tawxiidka lagu qorayaale ciidankeena ciidandalayaale dufaaca hore u galayaale iska caabiyay cadagayaale hubka saaniga u dhacayaale habla wada suleekhayaale gurtideena adkayaale ujeedada xafladan ayaa ahayd mid ay haweenka saribada hodan ee degmada Ibrahim Koodbuur gaar ahaan saribada Jaamac Gunti ay ku wareejinayaan ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee ku sugan jiida hore taakuleen isugu jirtay subag iyo waliba agab kale oo ay ku dhiirigelinayaan ciidamada naftoodurayaasha ee qaranka Soomaaliland ee hadiya habeen heeganka ugu jira sidii ay dalkooda iyo dadkoodaba uga difaaci lahaayeen cadawga qaybihiisa kala duwan munaasabadaasi ayaa ka qabsoontay xarunta miiska saraakiisha ciidamada qaranka ee magaalada Hargeysa qaar kamid ah haweenka saribada hodan ee deeqdaasi soo gaarsiiyay ciidamada qaranka oo ka hadlay ayaa yiri horta ciidankan jecelahay dumarkani waa dumarka ciidanka jecel ilaa SMM soo gurguurtay habeen iyo maalintoona ka hadhin weeyaan ciidankan jecelahay anagoon cidna ka qaadanin oo oran hebelow nacaaw ayaan dumarahan isku caawinaa waxaan kuna u gurmanaa ciidanku waa geedka u baxay horteena yaala cadawgana waa ku rasaas weeyaan inana waa inoo hurtada ku seexan u baxa weeyaan alxamdulillah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxa Ilaahay baa mahad leh ilaaha ciidanka u baxa korkayga saaran ee quruxda badan leh ee geedba geed u dhiibo cadawgana ku rasaas ama dhimbil ku horta waa Ilaahay wax loogu mahadnaqo weeyaan أنا كما هدان دولة دايدو تشيرين ديبا مان مارين هدان دولة دايدو تشيرين دربان مان تونتين هودال ما تجيني هم في باي ماري لها ديبا دم صعداني دولن باي عوني لها رجعان دالي نبا نودا بابا حيران رجعان دالي نبا دودا نوجو تشرا هبني مالين بيهجا نويهين وحين نودرنا ينجا دفاعيا رجعان عيد تشيرين باشيد هرفرديا كهيين كهوجان كسات كعيد ماذا قرن كي الصومال قاشان لده جامع محمد اسماعيل أي هوين كاسو أشجعي إن ciidamada qaranku ay u ogsoon yihiin sida ay markaas tahiil iyo hooba ula barbartaagan yihiin taakulayntii aan hal mar iyo laba iyo saddex midna ahayn ee faraha badneed ee iskaashatada ay nagu taageereen waxaanu garanay hadaan hoggaanka saadkanahay oo hawlaha ciidanka u qaabilsan taakulaynta inaanu idin xusno maadaaba aan xusteen ilaahayna waxaan idin ka baryaynaa halka ka soo bixiseen yaani taakulayntii ee dhaqaal raashin lahayd ee hilib lahayd ee farsamo in ilaahay khayrkeeda idin siiyo wax fiican ilaahay idin ku bedelo abaanduulaha ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya guuta Axmed Cawaale Yuusuf Libaax ayaa uga mahad celiyay haweenkaasi deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen waxaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa gacanta aan kala go'lahayn ee waxtar kale ee aad u soo gudbisaan ciidanka qaranka meel kasto oo joogo siba haweenku gaar ahaan haweenka iskaashatada hodan ma iloobi karo mana dafiri karo waxaan sa idin sheegayaa mar walba taageerada dumarku ay la ag taagan yihiin ragga iyo waxtarkoodu gaadha marka waxtarkiinaasi wuu soo gaadhay waana ognahay waa taariikh nagu qoran waana waajib idin saaran gabagabadii abaanduulaha ciidamada qaranka Soomaaliland ahna kusimaha taliyaha ciidamada qaranka sareeya guuta Axmed Cawaale Yuusuf ayaa shahaado sharaf ku maamusay haweenkaasi ka soo saribada hodan ee degmada Ibrahim Koodbuur gaar ahaan Jaamac Gunti deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen ciidamada qaranka ee Soomaaliland ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiida hore oo xooga qaranka Soomaaliland leeyahay ayaa shacabka Soomaaliland guda iyo dibadba looga baahan yahay in markasta maanka ay ku hayaan taakulaynta dhinac kasto ay tahay maadaama ay naftoodii u horayaan ilaalinta amniga qaranka Soomaaliland maaha markii ugu horeysay ee hooyooyinka saribadaha ka ganacsada ay taakulayaan ciidamada qaranka ee Soomaaliland halka dadka ladan iyo qurba jooga Soomaaliland aanay ka muuqan inta badan goobaha lagu taakulanayo ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee ku sugan jiida hore